السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada barnaamij cusub oo aan maanta uga hadlayno mid kamid ah cibaadaadkii ugu yaabka badnaa dunida oo ay sameeyaan koox kamid ah koox diimeedyada ka jira dalka Hindiya. Kooxdani waxay caabudaan dooliga ama jiirta qofba sidoo u yaqaan. Hindiya waxa loo yaqaanaa dhulkii cajaa'ibka. Waxa ku nool dad kor u dhaafaya 1.3 bilyan oo bani aadam ah. Waxa ka jira diimo, dhaqamo iyo luuqado aan la tirakoobi karin. Sidoo kale Hindiya waxa laga caabudaa in ka badan 330 milyan oo ilaahiya ah. Waxa ku jira kuwa oo ay ka mid tahay Karni Mata oo kooxda maanta aan ka hadlayno ay aaminsan yihiin. dalka Hindiya diinta ugu badan oo laga aaminsan yahay waa diinta Hinduuska ama diyaanada Hinduuska loo yaqaan oo ay aaminsan yihiin 79% in ka badan dadka Hindiya ku nool. Waxa ku soo xiga Islaamka oo 15% dadka ay aaminsan yihiin. Waxa ku soo xiga 2.3 oo lagu sheego inay yihiin Kristaan. Waxa ku soo xiga Buddhiska oo tiradooda lagu sheego 0.7. intaani waa diimaha ugu badan ee dadka Hindiya ay aaminsan yihiin. Sidoo kale waxa jira diimo iyo kooxo diimeedyo ciida ka fara badan oo dalkaasi ka jira. Waxa laga helayaa Hindiya dad caabudaya wax kasta oo maskaxda bini'aadanka ku soo dhici kara nooc ay doonaan ba ha ahaadeen. Waxyaabaha ugu la yaabka badan ee dalka Hindiya laga caabudo waxa kamid ah masaska, eeyaha, daanyeerada, lo'da, sanamada, bani'aadamka iyo waliba dooliga ama jiirta oo aan maanta ka hadlayno kooxda caabuda. Karni Mata waa macbadka ama goobta cibaadada ee ileeyihiin kooxdan jiirta ama dooliga caabuda. Haddaba maxay tahay qisada sheekadani? dadkani waxay ilaahnimo u caabudaan oo ay aaminsan yihiin Karni Mata. Karni Mata waxay ahayd islaan Hinduus ah oo diinta Hinduuska aaminsan oo aad iyo aad ay u qadariyaan. kadibna muddo dheer kadib waxay bilaabeen qarnigii 14aad inay ilaahnimo ayada u caabudaan. waxay aaminsan yihiin inay ka soo daahirtay ama ay ka soo muuqatay ama isu bedeshay jiir ama dooli. sidaa daraadeedna waxa dooli meesha ku xaraysan oo dhan inay ka turjumayaan ilaahadaas ay caabudayaan ayaga. macbadkan loo yaqaano Karni Mata waxa la dhisay 1900 sanadku markuu ahaa oo ku beegan 120 sano hadda ka hor. macbadkan waxa la sheegaa inay ku dhex jiraan ama ay ku nool yihiin wax kor u dhaafaya 25,000 oo jiir ama dooli ah. dadkani dooliga aad iyo aad ay u aaminsan yihiin ayagoo halkaas ugu keena noocyo aad u kala duwan oo cuntada kamid ah sida caanaha, macmacaanka iyo nooc kasta oo cunto ah. halkan waxay u yimaadaan cibaado iyo sidoo kale inay bariyaan haday caruur u baahan yihiin iyo hadii dhibaatooyin kale oo noloshooda kamida ay haysato. meeshan waa meel aad u qurun badan sida idin muuqata dadka tagana ay sheegayaan. dadkan heerka ay ka gaarsiisan yihiin weynaynta iyo kor u qaadida dooliga ama jiirta. muuqaalada qaar waxaan ku arkay saxan ay cunto ku cunayaan oo dooli dhexbartanka ka fadhiyo oo ayna haba yaraatay ka ashashaynin ama aynan ka waswaasaynin kana baqaynin caafimaad darro iyo dhibaato inay uga timaado. doolidan ama jiirtan waxa kamida mid cad waxayna aaminsan yihiin qofka soo booqday macbadkan ama meeshan ay ku cibaadaystaan hadduu markuu macbadka yimaado uu ka soo baxo midkaas cadaanka ah in wax alla wuxuu ku riyoonayo ama wax alla wuxuu rabi lahaa ay u xaqiiqoobayaan ama ay dhab u noqonayaan si gooniya ay u qadariyaan. sidaa daraadeed waxay ku dhex wareegayaan macbadka ayagoo cuntada ugu macaan ku raadinaya dooligaas cadaanka ah. arrimaha aan isweydiiyey waxaa kamid ah in dalka Hindiya ay muslimiinta xukumayeen muddo gaaraysa 800 oo sano isla markaana waxaan iyo dhaqamada noocaan ay ka jiraan. malihi maxaa muslimiintu ugu qasbi waayeen islaamka dadka dalka Hindiya ku nool laakiin waxaan isleeyahay hadii dadkaasi si fiican ugu dadaali lahaayeen ay dadka diinta gaarsiiyaan waxa suuragal ahaan lahayd ugu yaraan dhaqamada noocaan inay ka takhalusaan ama dadku ku nool dalka Hindiya intooda badan ay qaataan islaamka. intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijkeeni maanta laakiin waxaan idinkaga tagayaa su'aal muhiim ah ma dhici kartaa aragtidaada dad muslimiin oo waliba Soomaali ah inay sameeyaan dhaqamo diin ku saleysan oo laga soo guuriyay dadkan amaanta ka sheekeynayno oo waxyaabahan qaarkood lagu lalaboonayo ama lagu yaqiiqsanayo caabudaya dhaqamo laga soo guuriyay inay sameeyaan oo ay ku dhaqmaan ma laga yaabaa. su'aashaas waxaan idin weydiinayaa insha Allah mustaqbalka waxaan idin la wadaagi doonaa arrin ku saabsan mid kamid ah dhaqamadaas diimaha Buddhiska iyo Hinduuska laga soo guuriyay oo dalka Soomaaliya dad jooga hadda ka hor ay sameeyeen. bal arrintaas su'aal iska weydii waxaad isku daydaa inaad baaritaan ku sameyso aragtidaadana ila wadaag waxaad ka aaminsan tahay iyo haddaad u aragto inay munaasab tahay inaan soo qaado iyo in kale. waad ku mahadsantihiin waqtigiina iyo daawashadiina. waxaan idinka codsanayaa inaad nagu taageertaan like, subscribe iyo sidoo kale inaad saaxiibadiina la wadaagtaan barnaamijkan. fadlan aragtidiina igu la wadaaga qaybta hoose ee commentiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.